xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho bishii Abriil sanadkii 1968 waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo qayb sare kamid ku qaatay Muqdisho isagoo waxbarashadiisa dugsiga sare ilaa iyo heer jaamacadeedna ku qaatay dalka Norway waxa uu ku takhasusay maareynta ganacsiga maamulka iyo siyaasadda waxa uu inta badan noloshiisa uu joogay dalka Norway halkaasi oo uga baxay inta badan waxbarashadiisii waxa uu ka soo shaqeeyay dawladda hoose ee Norway sanadkii 2001 ilaa iyo 2002 sanadkii 2002 waxa uu la taliyo u noqday hay'adda qaxootiga Norway ee Norwegian Refugee Council NRC sanadkii 2003 ilaa 2006 waxa uu maamulo ka noqday shirkad ganacsi oo alaabooyinka dhoofisa soo dejisa oo ka shaqeyn jirtay dalalka Afrika iyo Asia qaarkood 2006-2014 waxa uu mas'uuliyado kala duwan ka soo qabtay mar kale hay'adda qaxootiga Norway ee NRC isagoo ka gaaray agaasimo goboleed hawshaasi oo hay'adda NRC waxa inta badan dadka ku sugan Soomaaliya ay ku xasuustaan nalalkii ku shaqeynaya solarka ee laga hirgeliyay magaalada Muqdisho sanadkii 2014 waxa uu ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya xasan cali khayre uu agaasimo ka noqday hay'adda Som Oil and Gas qaybteeda Afrika hay'adan ayaa intii uu ka shaqeynayay xasan cali khayre waxa soo gashay shaashada musuqmaasuqa iyadoo lagu eedeeyay in ay geysatay falal musuqmaasuq iyo waliba in xiriir uu la lahaa gaar ahaan ra-iisul wasaaraha cusub ururada argagixisada ee Soomaaliya ka jira gaar ahaan ururka Al-Shabaab waxa hay'adda Som Oil lagu eedeeyay in ay laaluush siiyeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda federaalka ah sida ay qortay hay'adda Monitoring Group waxay sheegtay in ay baaritaan ku sameeyeen dakhliga soo gala dadka kala duwanaa ee uu xiriirka la lahaa iyo canshuurihii uu bixinayay ra-iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre hay'adda Monitoring Group ayaa sheegtay xilligaasi in dawladda Norway oo uu dhalashadeeda haysto ay ka codsadeen inay u soo gudbiyaan dhammaanba macluumaadkii ku xeernaa xasan khayre ra-iisul wasaaraha cusub baaritaan dheer oo muddo qaatay kadib ayaa eedahaasi lagu waayay xasan cali khayre waxa uu xiriir dhow la lahaa madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud waxaana dawladdii xasan sheekh maxamuud ay aad u difaacday xilligaasi eedihii loo soo jeediyay hay'adda Som Oil and Gas oo uu qaybta Afrika mas'uul uga ahaa ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ra-iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre waxa la filayaa inuu hortago baarlamaanka federaalka ah si loo ansixiyo iyadoo muddo 15 cisho gudahood ahna laga doonayo inuu soo dhiso golihiisa wasiirada ra-iisul wasaaraha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka codsaday xubnaha baarlamaanka in ay dedejiyaan ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub aad iyo aad baad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd oo inala socodsiinaysay taariikhda kooban ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya xasan cali khayre wasiirka macdanta iyo petroolka ee dawladda Soomaaliya Maxamed Mukhtaar ayaa waxa uu ka mid yahay dadka ay sida weyn isu yaqaanaan ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya maxamed mukhtaar ayaa wuxuu sheegay in uu yahay nin howlkar ah oo howsha loo magacaabana ka soo bixi kara Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa maxamed mukhtaar wasiirka petroolka qadka telefoonka ee Muqdisho uu kula xiriiray bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan rabaa fursaddan inaan ugu faa'iidaysto xasan khayre ugu hambalyeeyo magacaabitaanka loo magacaabay haddii la yiraahdana uu ka soo dhalaalo rajada Soomaaliya dad badan ay ku qabto asaga iyo madaxweynaha cusub ee Farmaajo xasan khayre waa nin Soomaaliya ku soo koray magaalada Muqdisho wax ka bartay waxbarashadiisana ay gaarsiisan tahay MBA ama shahaadada labaad oo bartay waxaan loo yaqaan Master of Business Administration aniga asaga waxaan macrifanahay muddo 20 sano ku dhawaada waxaan isku baranay Ingiriiska kadibna waan soo shaqeynay waa nin Soomaali ah Soomaalinimadana ku weyn tahay kartida aqoon leh ka soo shaqeeyay hay'ado kala duwan oo ugu weyn tahay Norwegian Refugee Council xilligii uu meeshaas joogay budgetka uu maamulayay waxay dhameeyay $100 milyan dadka staffka u shaqeynaya waxay dhameeyay $2,000 wuxuu ka soo shaqeeyay uu director maamulo ka noqday geeska Afrika ay ku jirto South Sudan ay ku jirto Yemen marka waa nin Soomaaliya waxa uu ka noqday waxaan loo yaqaan country director ama wakiilka NRC-da u fadhiya Soomaaliya taana marka waxay fursad u siisay in xilligii colaadaha iyo xilligii dhibaatada Soomaaliya oo dhan uu shaqo u tago goboladeeda kala duwan deegaanadeeda kala duwan waa nin aad ugu warqaba arrimaha Soomaaliya xiriir fiican la leh
deegaanada kala duwan ee Soomaaliya. waan gartay sida wararku sheegayaan sidoo kale wuxuu ahaa shirkadan Som Oil ayuu haatan u shaqeynayo dalka Britain ayuu deganaa inkastoo uu dhalashada dalka Norway haysto oo halkaa ku noolaan jiray marka hore shirkada muxuu ka ahaa markii ugu dambeysay shirkadaas wuxuu ahaa waxaan loo yaqaan board of director-ka ayuu ku jiray oo shirkadaasna waxay shirkad Soomaaliya heshiis la gashay 2013 taasoo xog ururin ka aruurisay badda Soomaaliyeed xog ururintaas oo bishii December 9-keedii 2015 ay ku soo wareejisay xukuumadda Soomaaliya. waan gartay waxaa jiray in mararka qaar eedeymo ay soo baxayeen oo isaga gaar ahaanna warbixintii UN monitoringka ama qoladan kormeerka qaramada midoobay ay isaga si gaar ah u eedeeyeen taas ma la odhan karaa laftigiisa dhaawac bay u keeni kartaa ama saameyn ma ku yeelan kartaa shaqadiisa horta sidaan ognahay cid walba waa la eedeyn karaa laakiin waxa muhiim ah eedeyntii la eedeeyey ma la cadeeyey sidaan la soconno bishii March 2016 ayaa qolooyinka la socoshada cunaqabateynta Soomaaliya ayay waxay ku xiriiriyeen inuu la kuleeyahay al-shabaab laakiin muddo 3 bilood kadib markii arrintii baaritaan lagu sameeyey wax cadeyn haba yaraatay waa loo waayey ayagana eedeyntii ay eedeeyeen way ka laabteen oo marka eedeyntaas maaha eedeyn jirto xasanna laguma yaqaano inuu xagjir yahay ama al-shabaab uu yahay 12 sano ayuu Soomaaliya si dadban iyo si toos ah ugu shaqeynayay oo dadka Soomaaliya macaawinada u baahnaa uu ka dhex shaqeynayay marka nin lagu tuhmi karo inuu shabaab yahay ma aha laakiin eedeyntaas way jirtay ayagana markii dambe eedeyntii dib ayaa loola laabtay oo wax cadeyna maysa jirin eedeyntiina meesha ayay ku dhamaatay waan gartay laakiin dalka Britain laftigiisu Som Oil aad baa loo eedeeyay hay-adda dabagalka musuqmaasuqa oo kale eedeymo kala duwan bay u jeediyeen taa qudheedu miyaanay laga yaabo inay sumcadiisa wax yeelayn karto waa runtaa waxaa dhacday kooxda la socoshada cunaqabateynta Soomaaliya waxa ay baaris sameeyeen horaantii 2015 bishii June ayay waxay eedeen u gudbiyeen xafiiska musuqmaasuqa daran ama waxaan loo yaqaan Serial Fraud Office ee UK ayuu ku eedeeyay in Som Oil ay musuqmaasuq ay gashay xafiiskii Serial Office bishii July 13 ayuu ku bilaabay baaritaanka waxa uu socday ilaa iyo 2016 bishii November waa muddo ku dhow 15 bilood waxayna ku soo gabagabeeyeen in aanay jirin wax cadeyn ah oo lagu hayo Som Oil inay gashay wax musuqmaasuq sidoo kale wax cadeyn waxa lagu hayn dawladda Soomaaliya inay gashay marka eedeyntii laftigeeda waxay ku soo gabagabooday inaan wax dambi ah lagu hayn isla taa oo kale waxa Prime Minister Soomaaliya bishii markii eedeynta ay soo baxday waxa uu magacaabay guddi madax banaaneed oo ka kala socday hay'adaha kala duwan ee Soomaaliya baaris ayay sameeyeen ayagana sidoo kale muddo 3 bilood ayay baaristaas wadeen 2015 dhamaadkeedii ay soo gabagabeeyeen ayagana waxay soo saareen midda uu xafiiska Ingiriiska uu soo saaray oo ah in aanay jirin wax wadaagaarsi dhex maray Soomaaliya iyo Som Oil marka isku soo duubo eedamaha waa la sameeyey laakiin eedamihii marka la baaray haddii qofku wuxuu xaq u leeyahay haddii la baaro oo eedeyntii la waayo inay arrinta meesha ay ku istaagto laakiin macnaheedu maaha lama eedeyn karo qof walba waa la eedeyn karaa laakiin marka la eedeeyo haddii la cadeyn la helo in markaa dembiga ayuu leeyahay laakiin inta la baaro haddii la yiraahdo waxba dembi waa lagu waayo hadda meeshaas ay arrintu ku egtahay waan gartay saacadda wasiiraddeenu gabagabada usoo dhowaano dad badanaan xasan hore siyaasadda uga aqooninba waxay isweydiinayaan halka uu siyaasadda ka soo fuulay iyagoo laga yaabo inay ku yaqaaneen dhinacan samafalka oo kale waxaana su-aalaha ugu badan la isweydiinaya ka mid a xasan dad badan baa ku tilmaamayay inuu ahaa dadka sida dhow ugu ololeynayay madaxweynihii hore xilka lagaga guulaystay xasan sheekh maxamuud haatanna isbedelkii cusbaa ee yimi ayuu booskii ugu muhiimsanaa qaatay oo waa kan ra-iisul wasaare loo magacaabay marka dadka qaarkood baa waxay leeyihiin armay arrintu tahayba isbahaysi siyaasadeed oo xukuumaddii hore xilka wareejisay iyo madaxweynaha cusub oo isbedel doonka ahaa labadaba arrimaha maxaad ku macnayn lahayd horta laba aan kala saarno xasan ma kari karaa oo hawshan ma ka soo bixi karaa aniga waxaan aaminsanahay inuu kari karo kana soo bixi karo waayo waa qof Soomaaliya daacada karti leh aqoon leh waayo araga xiriir fiican la leh dowlad goboleedyada iyo dadka Soomaaliya deegaanadeeda kala duwan taa marka waa markay noqoto horta hawshan ma ka soo bixi karaa midda labaad anaga laftigeeda waxaan u baahanahay Soomaaliya in ay siyaasadda ka qaan gaarto oo aysan noqon winner takes all macnaha ama anaa guulaystay ama laga guulaystay maaha runtii waxay markii shalay aan ay taagneed munaasabadda
sida ay madaxweyneyaasha isu qiimeynayeen oo qof walba qofka kale kaalintiisa u qadirinayo waxay muujinaysaa in qaangaar siyaasadeed aan muujinayno oo ah inaan wax isu ogolnahay wax isu reebi karno waxna aan wadaagi karno marka haddii marka ay maadaama aanan annaga hadda xisbiye cadcad aanan kala lahayn oo aan leenahay sida idinka hadda meesha joogtaan oo republican iyo democratic aanan leenahay haddii dadkii soomaaliyeed ay isu turaan ay isu qiimeeyaan ay isqadariyaan oo dad kartile ay isu soo xulaan waxaan filayaa inay tahay in wax lagu farxa ay tahay aysan ahayn macnaha wax xumaana haddii xasan uu sida aan sheegnay uu kartideeda leeyahay ma arka sabab u diidi karta in qof soomaali ah fursadaas la siiyo haddii dad kala duwanaa ay isoo jiidaysane waxay kasii ficnaanaysaaba in uu murankii siyaasadeed uu soo yaraado kaasina wuxuu ahaa wasiirka macdanta iyo betroolka ee dowladda soomaaliya maxamed mukhtaar oo isagoo jooga muqdisho khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheena ismaaciil xuseen farjar waa tahay daanduray isla wararka ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ayaan ku guda jirnaa weli dadka ay muddada dheer is yaqaaneen ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre waxaa ka mid ah cabdifataax dheel guuleed oo ka mid ah qurba joogta ku dhaqan dalka ingiriiska dalal badan oo ay soo wada degeenna way jiraan saare cabdi axmed ayuuna uga warramay aqoonta uu ra-iisul wasaaruhu u leeyahay waxaan ka aqaanaa xasan khayre waxaan aqaanay muddo 20 sano ah oo ku ahaa nin aqoon-yahan ah oo ku noolaa wadanka Norway muddo dheer waqtigii dagaalada Soomaaliya laga soo qaxay kadib wuxuu deganaa Norway magaalada Oslo kadib wuxuu soo wareegay magaalada London oo ganacsi ka samaystay kadibna uu wax ka baranayay markaa kadibna waxa uu wareegay magaalada Nairobi oo uu shaqo ka helay hay'adda la yiraahdo Norwegian Refugee Council oo uu ka ahaa Regional Director Geeska Africa 9 wadan iyo wadanka Yemen intaa kadib waxa uu markii dambe madax ka noqday shirkadda Somalia Oil and Gas oo laga leeyahay dalka Ingiriiska ayuu ka mid ahaa madaxdeeda waa tahay marka 20 sano saad ii sheegtay ku dhawaad ay istaqaaneen maxaad ku taqaaneen nin noocee dabciyan iyo maskax ahaanba maxaad ku taqaanaa wallahi wuxuu ahaa nin aad u karti badan oo aqoon badan oo mujtamaca Soomaalida iyo dadka ku dhex jiro runtii nin edeb badan oo akhlaaq badan oo afgaaban oo dadku ay wada jecel yihiin oo dadku mar walba ay ku soo hirtaan oo dadkana aad u caawiya ayuu ahaa waa gartay xilliga haatan loo magacaabay ra-iisul wasaaraha wadanka Soomaaliya waqti adag ayuu ku jiraa dhan walba marka la eego dhinacyada amniga dhaqaalaha horumarka dhibaatooyinka jira wax oo dhanba marka qof ka soo bixi kara maadaama siyaasadda dhankeedan uu ku cusub yahay kula tahay inuu noqon karo ra-iisul wasaare kasoo dhalaali kara shaqadiisa runtii waxaan ku kalsoonahay in uu yahay qofkii ku habboonaa shaqadan oo maanta Soomaaliya ka samata bixin lahaa dhibka iyo rafaadka ay ku jirto waana qof karti badan leh oo aqoon badan iyo xirfad badan iyo saaxiibo badan ku dhaxlay mujtamacyada iyo wadamada dariska iyo wadamada caalamka oo idil marka waxaan isleeyahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sidii loogu hanweynaa oo loogu farxay ayuu haddana waxa uu keenay nin kale oo aad loo hanweyn yahay oo aad loo jecel yahay oo ummadda wax u qaban karaya waa gartay bal haddaad hadda wax yar dib noo xasuusiso ka sokow inaad leedahay hay'adaha samafalku wax ka ahaa iyo shirkadda Soma Oil maxaad kaleetoo si rasmi ah shakhsiyadiisa nooga sheegi kartaa muddada istaqaaneen wallahi wuxuu ahaa nin dadkiisa ka dhex muuqda oo Soomaalida UK iyo Norway mar walba xasan waxay u arkayeen qof leader ah oo ku habboon inuu dalka Soomaaliya hogaamiyo mar walbana wuxuu ka mid ahaa hay'adaha ama community-da Soomaalida ee magaalooyinkaas u deganaa ayuu ka dhex muuqday oo very active ka ahaa xasan wuxuu ahaa nin aan saaxiibanahay waxaan ku wada noolayn magaalooyinka London oo aan muddo wada deganayn ka horna waxaan isku naqaanay Norway Oslo sidoo kale waxaan isku aragnay in badan magaalada Kenya wadanka Kenya Nairobi sidoo kale Soomaaliya isku aragnay wuxuu ahaa nin aan iska warqabno oo wada xiriirno oo aan isleeyahay maanta ummadda Soomaalida waa ninkay u baahnayd oo ay shaqadan ku aamin lahayd oo ka soo bixi lahaa waxaan rajaynayaa isagana inuu keeni doono wasiiro sidii asaga loogu farxay oo madaxweyne farmaajo loogu farxay oo kale wasiiro ayagana ka soo dhalaali kara shaqada loo inuu isagana soo magacaabi doono ayaan rajaynayaa waayahay cabdifataax maadaama uu yahay siyaasadda ra-iisul wasaare ku cusub ra-iisul wasaaraha haatan la caleemo saare saaxiib ayaa tihiin si dhow ayaad isu taqaanin muddo aad u dheer saad leedahay bal marka waxaad iga warantaa sida uu ku wajihi karo marxaladaha adag ee Soomaaliya waxaan isleeyahay waa xasan qof ka dhex muuqday dhammaan mujtamacaadka Soomaalida oo dadka Soomaalida oo dhan ay u wada siman yihiin marka waxaan isleeyahay maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira iyo dhammaan siyaasiyiinta iyo dadka magaca leh iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa nin ay u soo istaagi karaan oo ay maqli karaan oo saaxiibad fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan ha iloobin inaad subscribe aad tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday
hayloobin in aad gambaleelka aad furato si aad ula socoto waxyaabaha aanu soo gelinno janalkan. haddii aad u aragto in muuqaalada noocani oo kale ah aad wax ka faa'iidayso leeg saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa mahadsanid.